waa muuqaal ka mid ah muuqaaladeennii dalxiiska. Waxaan u yeeran doonaa tagsigii sida caadiga ahayd. Waa uu inoo imaan doonaa xagga dambe ayaan isku tuuri doonaa. Xagga hore waad garanaysaan waa darawalkii odayga timaha cad. Waana casar. Qorraxdu aad bay u kululeyday. Waa in la tixgeliyo mar haddii masaajidka ay aragtid aadimaadii ayaa bixi doonta. حي على الصلاة aadimaadu way dhamaatay. Halkan waa meesha asxaabta aan iska sii raaci lahayn oo ay joogeen markaas. Waanu ka wada baxnay dhamaantayada. Hadda waxaan soo gaarnay goobtii dalxiiska. Intani waa inta u horeysa. Waxaa laga yaabaa wax fara badan oo muhiim ah in aysan ku muuqan, laakiinse gudaha ayaynu u sii geli doonaa. Odaygana meeshu ka taliyay mar haddii aad aragtay odayga da'da weyn ee meesha kasoo yar baxayay. Gudaha ayaynu sii gudbaynaa. Dhirtani waa dhir loo jaray si waqti la geliyay oo waliba aad loo habeeyay, badanaana lagu talagalay dadku inay indhahooda ay ka helaan. Waynu kasii gudbaynaa. Meesha dhagaxna lagama waayi doono iyo waliba dhul biyo ay ka dhamaadeen. Waxaa lagu talagalay inaad ku xasuusatid wadankii aad ka timid. Waa haddii uu sidan ahaan jiray. Kulay anigu laba sawir baa markaas ku yara galay. Aad bay u qurux badnaayeen dhagaxanta la soo keenay. Halkaas waxaa inooga muuqda cameraman iyo laba qof oo sawir laga qaadayo. Waxay hayeen aroos meesha ka dhacayay. Iyaga laftigooda aad ayay qurux badnaayeen sidii sawirada ay u galiyeen iyo waliba bartii ay ku galiyeen. Waan ku soo dhaweynayaa banashqada adiguna ka yara had. Waynu kasii gudbi doonaa. Dhanka kale waxaa iyagu booqasho ku joogay quraanjo dhirta ku baashaalaysa laftigeedu. Aynu ka gudubnay waxaynu gudaha u soo galnay hadda goobtii dalxiiska. Halkaasna waxay nooga muuqda sidoo kale aroos labaad qolyo kale iyaguna ku galayay sawiradoodii maalinta farxadda isku waara oo kale hela caruur Turkiyana wada wanaagsan. Halkanna waxaynu ku aragnaa dhir ubaxyo aad qurux badan bixisay. Waxay u baahan yihiin in indhaha laga qaadinba. Aynu kasii gudubnay waxaynu u taraarahaynaa dhanka biyaha iyo waliba maxaan idhaahdaa badda yaray. Laga yaabaa dad badan inay jeclaystaan inay badda ku tahriibaan, waayo bad hadday maqlaan tahriib baa dhagooda kusoo dhacaya. Halkan waxaa loogu talagalay in ay dadku stresska haddii ay leeyihiin iskaga saaraan. Bahalaha yaryar ee dadku ay saaran yihiin laba qof baa loo fulaa ama 6 qof cagaha lagu wadaa. Markaan waa la yaabanaa aan meesha anigu aan soconayay waxaan lahaa dadkani sabab baasha u saarayay mise la dhacay, laakiinse waxaan dib ku ogaanay in siro wanaagsan wax walba ay u soconayaan amar Ilaahay. Goobtana waxay aad ugu wanaagsan tahay inaan laga tegin hadda aan laga dhaqaaqinba waaguna ugu bariyo amar Ilaahay waa haddii aadan amar kale lahayn. xaqiiqdii qorraxdu xitaa kuma dhawayso. Halkaas buurta aad moodaysid waa meel gameka lagu ciyaaro. Gamemkaas waxaa ku ciyaaraya asxaabta dadka isqaba iyo dadka kale wax kale isku hadday doonaan baa iyaga laftigoodu. Waxaynu dib ugu soo laabanaynaa meeshii biyuhu ay dhex yaaleen ama si ay dhex boodboodayeen aan idhaahdabe. Biyaha si yar oo qabow oo degan ayay u soconayaan. Agtooda ayaaba wanaagsan inaad iska fadhiisatid aadan ka dhaqaaqin. Wata doontii casriga ahayd yaa u baahnayn in lagu kaxeeyo. Kaliya waxaa u baahan tahay adiga inaad asxaab ay kula socoto isla markaana sida baaskiilka ayaa loo wareejinayaa. Kadibna markasta aad cagaha wareejisaan iyada ayaaba soconaysa. Dhinaca doontaana waad la soconaysa maanta oo dhan. Halkanna waxa weeye meeshii lagu talagalay in dhanka biyaha aad ka daawatid. Wayna ka soo dhamaanay xaggii biyihii aynu bal dib u eegno goobihii ay ku yaaleen dhirta aadka u quruxda badan. Wadooyinkiis qaabka casriga loo habeeyay ee bilaadanku dhex soconayeen iyo waliba masaajidkii. Halkan waxaan arkaynaa gaariga yar oo lagu talagalay inaad ku dhex damaashadid yaan lagu qosline meelaha ay ka kooban tahay meeshu. Wata meeshii gameka aan sheegnay haddana waynu iska sii caraabaynaa. Waxaynu aadi doonaa magaaladii iyo meeshii aynu ka nimid. waxaan idin leenahay waa inoo muuqan muuqiga waa inoo dalxiiska xiga meesha magaceeduna waxa weeye dibaan ka sheegi doona ama se qoraalka ku akhriso waayo magaceedu ugu yaraadkaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.